بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوابا قري جلوبو نتورك ولا ليال ميل الدنيا دعالة دا تكجوك تويدين سلام يا صلاتي اسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي أيدي الله سلام كبعدي waxaan rabaa in idin la wadaago warbixin hore ay sii deysay Gari Global Network oo ku saabsan magaalada Ley caasimada gobolka Daawa power lightiga halkaasi la geliyay power lightigaasi waxa la geliyay hadda muddo laga joogo hal sano hase yeeshee halkaasi sano ka bacdi power lightigaasi muusan helin wax maaragtay oo maintenance ama maaragtay oo repair power lightigu wuxuu leeyahay faa'iido iyo khasaaro labaduba waxa ugu maqaalaa khasaaradiisi runtii u geystay magaaladaasi dadka qaar inuu ka gubay televisionno iyo telefoonno hatta waxa la sheegay in dadku halkaas ay ku dhinteen waxa yaab leh in hadii aad sameeyso magaaladan aad light geliso oo uusan lahayn wax maintenance oo wax maaragtay oo technician oo uusan joogin oo maaragtay bahashaasi sameeynayo hadii ay dhibaato keensato waxaan ugu maqaalaa in dadkaasi qaylidaan u dirsadeen magaalada Jijjiga aan wali ilaa imika qaylidaan taasi uusan waxba laga soo jawaabin taa waxa ka sii daran magaalada Mooyale waxay leedahay polytechnic ama school oo technica oo farsamo gacanta lagu barto oona ay leedahay kililka shanaad ismaamulka Soomaalida waxaan ugu maqaalaa iskuulkaasi inuu leeyahay budget oo maamul uu leeyahay hadii iskuulkaasi uu leeyahay maamul ama budget oo dawladdu ay leedahay maxaa dadka loo bari waayay waxyaabahan daruuriga oo sidaan oo kaleeto waxyaabaha gacmaha lagu sameeyo maadaama iskuul uu yahay iskuul maaragtay farsamada gacanta marka runtii arin aad aan runtii anagu aan la yaabnay hadii dhibaato dhacdo maxaa loo ordayaa dhinaca Oromada dadkii maxay u baran la yihiin ninka iskuul dadka iskuulkaasi maamula maxaa dadka wax u bari la yihiin maxaa dadka loo qaylidaansanayo Oromo iyo kaale nacaawi kaale biyaha naga jabay noo sameey kaale electricity naga jabtay noo sameey waa runtii arin yaab leh hadii iskuulkaasi uu leeyahay maamul dhaqaalana uu leeyahay oo dawladdu ay maaragtay gacan ka geysanayso waa in dadka la baraa maaragtay sidii waxyaabaha noocan ay dadku ay gacantooda ay ku sameeysan tan kale waxaanu leenahay dawladda kililka shanaad in adaad power light aad gelisaan dad shaqaalaha oo khibrad u leh waxaan inaad soo raacisaan markay suusan dadku dhibaato u geysanaynin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالله توفيق مقاعدنا وبقنا عليه